qof qofku ka sareeyo ama ka magac dheer yahay ayuu ilaahay kaga dhow yahay ka aamin halkan aynu ka wada soconaynaa reer Soomaaliland waanu hambalay subxaanallaah kaasi waa fanaanka maxamed bikey oo live uu shalay soo galay bartiisa Facebook oo ku sheegay in qofku ka caansan yahay hadduu rabo fanaan ha ahaadee in uu ilaahay uga dhow yahay taasi oo meel ka dhac ku ah diinta islaamka haddaba nala dhageysta su'aal la weydiiyay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haruun oo ku saabsan qofka diinta maskaxdiisa ku cabira sida maxamed bikey oo kale oo sheegay in fanaanka iyo qofka caanka ah uu ilaahay uga dhow yahay qofka kale ee aan caanka ku buuxdo taasi waxay keensanaysaa inaad garato waxaan lagu sheegaya maxaa xaq maxaa baatil ah waxaan lagu sheegaya waa aaraa bini aadam wax saxi waa ku jiraan tijaaribtii bini aadamka xaq waafaqsan wax baatilina waa ku jiri karaan mushkiladuna waxay ka taagan tahay aqliga iyo sida loo adeegsado aqligu waa nicma min nicam Ilaahi subhanahu wa ta'ala laakiin ibn khaldun baa wuxuu tilmaamay caalimkii ibn khaldun oo oran jiray macruufka baa wuxuu yiri aqligu waa miisaan sax ah laakiin waa markuu halkiisa jooga buu yiri waa miisaan daqiiq sida ka dahabka oo kale hadda dahabka miisaankiisa yar ku miisaamto waa very wax aad u yar buu tilmaamaya waxa loogu talagalay garaamada wax ka sii yar yar inuu tilmaamo miisaan dhab uu ku sheego haddaad dhagxan saarto se ka war dee wuu burburaya suurtagal ma inuu miisaamo aqligu wixii loogu talagalay waa miisaan daqiiqa si fiican buu u miisaama waxaan se loogu talagelin waxba kama sheego ولذلك عقول الفلاسفة عالم كصامرت بحيث يوافق ويد أفركون يشام غلص ما دو كنا صنادات بالله هي فلسفة دي ما من فلسفة لكن كهري بريه وايو وحان شيرين مراجع لغا انطلاقيا مال رسمي وغلا انطلاقيا شيرين عقله مستر بو بهي سادرادد و بوينت اوف فيو وحلقا تصيو شيء سيدا لغو تصيو عقلك سانا وحوا الله تصين كرا سانا وحوا الله تصين كرا wuxuu ku xidhan yahay asalka uu ka duulayo waxa kan uu ka eegayo marka diinta aqli laguma eego ilaahay waxa fawqa al-aqliga marjac la rabo inuu inoo noqdo abuu inoo soo dejiyay waxa lagu eegaa shaygan xagga rabbi ma ka yimi mise kama iman mithaal aan ku siiyo experts ka dunida oo dhan haday wax isku raacaan waxay kula muuqanaysaa وحقيقة صباح أما مسألة scientific قد تكون بسكورة واحد خبرة دي عقل جاي بني آدم كنا بسكورة عادي أوكي كي عقل جا أبو ريوح وكيرك ور هي كي عقوش أبو ري إليه ولا ينبئك مثل الخبير أأنتم أعلم أم الله وربيدين كأقوم بدل مسألة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي بقى جوابي وما أوتيت من العلم إلا قليلا من أنت كما طهي مركز إلهي عقلك قاعدين عليك يعني هو عقل فورا عقل قربه إنه إذا هذا إلهي ما سنين اعتاقية أو يحسوين يسحيهين يينا يسحيهين من يجيا إتمينس عقل ما هكاس هو قلدي هو فورا إذن عقوشه ووحي الله ينقوم من يستي إن نكون فكرنا وحقوق قرنا لكن ماشي سهداد ضعفصه وقلدين لامبد أنا يقول جمرك كوتشرت وحبي فينسا صومها ولامبد لا بقول وقت هذين يقول قدينا درار بين وانا سوى حلو ولا يجيا هذين أنا عرف عن صدنا الدنيا ده هاي في سكور انتهي فينسا لامبد والله لامبد يقول لكن ما لو قلت لك كلمة لغبطها لما تمشي الله تلقى وقصح ويفنيسا عقله ماشي الله تلقى وقصح ويفنيا وحي ربي هو تلقى انه يفيه ويفنيا مخلوقات كي الدراسه بين ربي كيولي والدراسين سواد بارس حقيقه قاعده صورتك العلميه وعصبنا تسكر ريسو لكن يونيفرس كان يجيا امام ما هي عقليه لفتيسان قيمينيا human being kan dib u qiimeynaya wuxuu ku socon laba sameynaya waa mas'ala qaldan mas'ala yani aqligu meeshiisu sax ku yahay walidaalka quraanka kuma soo aroorin meel aqliga lagu caayaya
qur-aanka waxaa ku soo aroortay dhammaan caqligoo la ammaanayo afalaa tacqiluun iyo ululalbaab iyo ulinuha iyo atafkiir iyo cuquusha wax ammaanaya caqliga qur-aanka ku soo arooray laakiin dadku inta noloshiisa ugu badana caqliga ma raace hawadiisu raaca marka dad caqlaaniyiin la yidhahdaa ma jire dad ahwaa'iyiin la yidhahdaa jira dad hawadooda raaca jira mutabici lhawa waxay naftiisu doonto iska raaca caqligu markaa hadduu meeshiisa joogana waa sax hadduu ilaahay isdhinac dhigana wax jira maaha wallahu aclam ikhwaani raalli ahda baaraka allahu fiikum waxaan rabaa inaadan ku bishaareeyo intaanan kuu soo gudbin bishaaradan waxaan kaa codsanayaa in aad gaarsiiso qof kasta maxaa yeelay qof walbood gaarsiiso oo isagu ku dhaqma adna ajirkiisad leedahay saana waxaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacilihi qofka dadka khayrka tusaya wuxuu la mid yahay qof isagu sameeyey nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka jaabir uu warinay radia allahu tacala canhu waardaa fi saxiix ibni xabbaan ilaah subxaanahu watacaala waa uu soo degayaa galabka carafo ayuu ilaahay soo degayaa allahu akbar soo degitaan isaga khaas u ah soo degitaan isaga keligii ku habboon soo degitaan aysan habboonin adigu aad u dhigato sida caqligaada ku jirto imagination iyo sawirooyin adu aad gashto ay khalad tahay soo degitaan isaga ku habboon jalla sha'nuhu siduu isagu ugu sugnaaday carshigiisa ayuu ilaah subxaanahu watacaala kadalika u soo degayaa maalinta carafo ee weyn maalinta carafo dadka xaggaas jooga ayaga waxaa laga rabaa in ay buurta carafo tagaan oo ilaahay baryaan subxaanahu watacaala laakiin adiga waxaa lagaa rabaa maalinta iyada ah in aad soonto maalintaas iyada ah waa maalinta ilaah subxaanahu watacaala uu ka milay diintan alyawma akmaltu lakum diinakum waa maalintii allah subxaanahu watacaala diintan quruxda badan eed u nisba sheegato eed ku dhaqanto ee ilaah subxana wataala islaam kaaga dhigay waa maalintii ilaahay uu dhammaystiray ee qur-aankan la soo wada dejiyay weeyaan maalinta iyada ah in aad weynaysaa lagaa rabaa maalinta iyada ah qofka sooma ilaahay jalla sha'nuhu wuxuu u dhaafaa dhammaan dunuubtii uu geystay haddii aad ahaan jirtay kuba daroogada isticmaala ilahay uu ku cafinaya subxaanahu watacaala haddii aad ahaan jirtay kuba beenta sheega ilahay ku cafinaya subxaanahu watacaala haddaad ahaantay kuba zaaniyaadka ama zunnaadda haddaad ahaan ilahay ku cafinaya subxaanahu watacaala wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih ilahay jalla sha'nuhu waa kan ka aqbala addoommadiisa towbata wayacfuu can asayi'aat haddii aad ilaah subxaana watacaala cafis weydiisto wallahi uu ku cafinayaa wayacfuu can asayi'aat oo haddii uu jeebka xashiish kugu jiray daroogane wayacfuu can asayi'aat oo haddaad isqaawin jirtayne wayacfuu can asayi'aat oo haddii aadan masaajidka aadi jirinne wayacfuu can asayi'aat oo haddaad marfishka dhex joogi jirtayne wayacfuu can asayi'aat oo